السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال soo dhawaada meel waliba oo ka joogtaan dunida daafaheeda dhamaantiin soo dhawaada. Please muuqaalkan like saar share saara si share garay please kan soo gaaro Soomaaliya oo dhan si ay walaashin cadaalad u hesho sida aad title-ka ka aragtay. Hadaa tahay qof naxariis leh, hadaa tahay qof damqanayso walaashin dhibaatada ku dhacday walaashayda, Allah u naxariisto. I'm sorry wallahi هذا أول حما وحكون على ولا شيء حمدي محمد فارح أما حمدي جوني فارح أذكر محمد فارح وحلو يقانا وعان كويها مقع جوني ولا شيء الله أن حريسته لما أمد الصومالية يفهم اللي جيبوا وتعسين يا سمر إيمان إلهي نقصيه كحن كحق درن أياد الشيء وحيد قبل رأسك مسكينة وحيد قبل يرو أرضيات وحين كقل الجبسي سنة كان سكول كالنجح وحين كمد هيد أرضي قشي اتحام كدولية وحين كجرت أرضي الصفق هراء مكالمة هراء كي شيء أي كمد هيد اتحامك والدولة قبطي وحيد قبل مستقبل له وحيد قبل همي له وحيد قبل ميل هكسين يسي لكن عادوا يا هنا قويي ayaa loogu soo hal raday oo sabab looga dhigay cadow daran ayaa helay waxaana taasi diyaaranayn la u dirayaa dhammaan ehelkayga familygayga oo meel waliba ay ka joogaan dunida daafaheeda dal iyo dibadba heer faarax Allah sabr iima Allah naga sii gabadheena walaasheeda qaaliga Allah u naxariisto naxariistan Allah ka waraabiyo kulli hada duca ay nooga baahan tahay waxa kale u baahanahay إن عدالة إيش ولاشين حمدي إن عدالة شيء أو بهانها الصومالية بليز فيديو هاليسي شرقريو لك هلا صار سي عدالة إيش ولاشين حمدي ولاشين وفاميلي جيجا ما أنت دبعتس أنا وأقول على فاميلي جيجا أي كل على بري الصومالية أذنك أي كل عكرتا فاميلي الصومال بري دبعتس أنا كل وإذا قبض كرتا قبلين والله باتن كره بليز فيديو لايك سارة شير لها سي وقارو أدوينه هردن أما أنتو كذا شافك الصومالي سي عدالة وهشو ولا شيء ده حمدي جوني فارح أما حمدي محمد فارح الله أن حريسته وحيد جبر نحريس بدن وحيد جبر دقن جبر احترام بدن جبر أو محاكو هاي اللي جعلها سكول كالنجح جعش هاي الدجان كيكون أولاد رادارك وحيكون أولاد دجان كرادارك دقمة ضيني لا جمعة والبوحي هذه جرت أي درس ومير جرت ساعوين جرت سيدا كلا جمعة أول واي أي أدير أي سومير يسي حمدي ما أهين قفل ويقيني قف أولاغ برت ما أهين maxaa ku dhahay xamdi waxay qof oo wanaag lagu xasuusta ay ahayd still dareenkayga ma xisaabin karaayo xaaladeeda ma xisaabi karo soo qofku qof jirkaaga oo hilibkaaga markuu dhibaateeyo iyo adin dhibaatadaas way ku dumqinaysaa way ku xanuunjirsaa inkastoo bulshada Soomaaliyeed ay family lahay YouTube walbana lagu soo qoraayo gabar Soomaaliyeed ayaa la kufsaday gabar Soomaaliyeed ayaa magaalada Muqdisho lagu dilay أنا وأنك قديسنا هي يوتيوب هذا صورن حمدي ما أهان قبر سومالي ما أهان ولا شيء ذي لطي وأهل كيج وفاميلي كيجا وحكون عنه وحقاد وحم هاي إن حليته ولا ما ساحن شليته ولا ما ساحن وجهي وبرني هاي إن برشر كيج مفريو إن وجهي سداد كده هن كريس أما وجهده وبرني هاي إن ده إلى حلها نورن وبرنيهن ما نهردين ما نجمعين markii oo falkaas dhacay kadib ilaa hadda maan hurdin wax cuntaan miiga daadagayso cunadii baarku waa xafaya laakiin ma awood cunadii inaan dejiyo inay qalbigay ku nasato hami uma haayo cunto soo waxa ahay qof jirkeedii hilibkeedaba hana qalgooyo oo la dhibaateeyay oo haddana meel walba waxa lagu faafinayaa xamdi ayaa haddana nin xiriir la lahayd ayaa bilimiyay soo
gabadhaanay jimcada ayay baxday ayada ay dhul soo beeraysay xamdina gabadh dhallinyaraa waaye nin way la sheekaysan kartaa so nimanka waxay u maan jireen gabar sharaf la ay ahayd gurigeeda ayay kula sheekaysan jirtay ayay ku shukaansan jirtay ma ahayn gabar bixbixid badan ma ahayn dadkana waxay soo qaadanaya hadda meel walba lagu faafiyey xamdi nin ay xiriir la lahayd ayaa shirqoolay so horta shirqoolku waa wax dhici karo horta xamdi hadda meed waa maanta ma hadlayso waxa ku dhaca maanta inay noo sheegto aad ay u wanaagsanaayd laakiin maanta ma hadli karto soo ma ahan marka waa laga fiican yahay qof dhintay in aad hadallo aad ka faafiso oo dhaxay iyada lugaheeda ku tagtay meeshaas ina dhaxday hadda ilaa hadda xaqiiqda ma ogin gabadhaasna way dhimatay waa marxuumad xamdi gooni allah u naxariisto inay lugaheeda meesha ku tagtay dabaqa oo waa bari ku yaal xaafada maajo anaga ma sheegi karno in waxa laga yaabaa la afduubta iyadoo wada mareysa ayaa laga yaabaa xitaa oo gaari lagu rito oo xagga la geystay so qof ayada meesha tagtay ma dhihi karo aniga ayada meesha tagtay ma dhihi karo mana ku dambaabi karo maanta meed waa iga hooseysa so dad badan ayaa arka oo dhaha youtube-yada marka maaha inaa views ku raadsataan gabar walaashin oo dhimatay oo muqdisho lagu waxyeeleeyay oo aniga qaasatan familigeeda ayaa ahay waa ka damqanaya waxaa kasii kulaanaya ina dhexdii lugaheeda ayay ugu tagtay dabaqa ay ku tagtay so waxaa laga yaabaa in jidka laga afduubtay qof oo lugihiisa dhib ku raadsanaya ma jiro ma fahanteen Soomaaliya please video like isaar muuqaalka isi shargare please walaasheeda cadaalad u hesho please and please muuqaalka isi shargare please muuqaalka isi shargare waan bariyaa Soomaali Maxamed please muuqaalka isi shargare maal horato video ayaan ka soo hadlay haweeney umul oo la kufsaday waxaan dhahay Soomaaliya ay tan halaga fiirsado maanta family-geyga ayaa ku dhacday maanta family-geyga ayaa ku dhacay beritoole family-diina ayaa ku dhici doontaa tan waa in laga dhiidhiyaa Soomaaliya hadda magaalada Muqdisho banaan baxaya maanta ka socdo xoogan way mahadsan yihiin bulshada Soomaaliyeed ee garab istaagtay ee noo muujiso Soomaalinimada nala damqatay dhibaatada ku dhacday walaasheeda inta bulshada Soomaaliyeed ee la damqatay ee magaalada Muqdisho ku sugan ee maanta banaan baxaas nagala qayb qaato way ku mahadsan yihiin halka ay mahad celinaya waxa kale u baahan walaasheeda Xamdi Maxamed Faarax ama Xamdi Gooni in hesho cadaalad sidee cadaalad ku heli kartaa wixii cadaalad ku heli kartaa adigoo video muuqaalkan like saara oo gaarsiiyo bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogto wax waliba waa la socdaa meesha ay ka dhaceen waa meel oo waxaan ku dhahay magaalada Muqdisho ayuu falka ka dhacay kiiskan waxa gacanta ku haysa dawladda Soomaaliya waxaan rajeynayaa walaashii Xamdi in ay hesho cadaalad ee noqon kiisaska hore loo duugay in aysan noqon ayaan rajeynayaa kiiskeeda Xamdi in cadaalad hesho ayaan rajeynayaa soo ma sii hadli kara halahan ka badan waxaan ka baqayaa inaa isceli waayo soo damiirkeyga aniga dhan saa ooynaa waji dhan wuu ibararay pressure anigoo qabin waxaan ka baqayaa pressure inuu ugu dhaco dhikar soo madaxeega wajiga dhan wuu baran yahay xalay toolo dhan indhihii aan ku soo jeedo ayaa maanta camera idin kula soo fadhiistay qof oo damiirkiisa aqligiisa siinayna ma jiro gabar Soomaaliyeed oo inta hadana la kufsaday oo kufsi wadareed loo geystay dhalinyaro isku sheegay inay yihiin Soomaali magaceena la sheeganay in ay walaasheeda kufsadeen ama ha afduubtaan ama meel ha ka qabsadaan si adinkan waxa sheegaysa in lugaheeda meesha ku tagto amsi soor waxaan igu cusanayaa waxaas inay naga deysaan walaashi hadda marxuumad waa Allah u naxariisto igu soo duceey in Ilaahay qabrigeeda u waasiciyo in iguna soo duceey in walaashi cadaalad ay hesho oo kiiskeeda aan la duugin bulshada Soomaaliyeed aad ayaa u mahadsantiin please muuqaalka like isaara share isaara comment yaya aad ayaa u mahadsantiin like walba oo qof walba oo Soomaali muuqaalka uu saar wuxuu gaarayaa bulsho walba oo Soomaaliyeed meel waliba oo ka joogta dunida afeeda waxa rajeenaa walaashii Xamdi Faarax inay cadaalad hesho maanta magaalada waxa ka socda banaanbax xoogan sida idin sheegay banaanbaxaas oo looga soo horjeedo oo waxaan ku dhahaa loogu banaanbaxaayo oo looga soo horjeedo dhibaatada walaashii loo geystay waa la kufsaday kufsiga looguma sameyn ee dabaq 8 biyaana oo ku yaala degmada waa bari xaafada Maaj ayaa laga soo tuuray dabaqaas ayaa laga soo gamo walaasheena arxan darana oo naxariis xuma oo damiir xuma oo wuxuusaa dadkaas maanta haday maanta dambiga loo kiiskan ay ku fakadaan bari kamaal hadana gabar kale oo Soomaaliyeed ayay sida ku sameeyaan dadkaas magaalada Muqdisho kama foga ama dawladda gacanta ku haysa hadda ama hal haayo ama yaa lahayn dadkaas magaalada ayay nala joogaan maanta haday kiiska Xamdi ku fakadaan ogaada Soomaaliyeed inay mar kale hadana ay sameynayaan waayo qofka markuu dambi galo uu ku fakado bari kamaal wuxuu isleeyahay kii hore waa ku badbaaday hadana kanna sameey I'm so sorry
soo maanta haddaad soomaalinimo jirto ee jirto ehelnimo arxanimo please videoga like hal saar hal sii share garay run ahaantii aniga ilintii aga go'day ilintii waa iga go'day sida uu ooynayay indhihii waa ibarareen wejigu waa ibararey sidaad kaamarada ka arki karto soo xala dhan maana seexan habeen hore sidoo kale wadna garaac badan walwal badan qalbi xanuun badan soo waxaasoo dhan waxaan u dareemayaa waayo xamdi waa jirkeyga waa hilibkeyga waa ehelkeyga waa familygeyga ma fahante soo adinkana faamilada Soomaaliyeed waa idin ku dhici kartaa arrintan oo kaleeto arrintan waa in loo istaagaa please waynu ku maasiin walaalaha Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho ee sida damiirka leh sida naxariista leh noo garab istaaga ee maanta banaanbaxa ka qayb qaadanay aad ay u mahadsan yihiin adinkana waxaan idinka codsanaynaa please videogan like ii saartaa si walaashii Xamdi Maxamed Faarax ay u hesho cadaaladda please Soomaaliya videoga like ii saara share garay videogan sida aad teetalka ka aragtay walaashayda waa Xamdi Allah u naxariisto iguna soo duceey Ilaahay naxariista janno ka waraabiyo waayo gacanka xaq daran ayaa dishay ayada dambi ma lahan waa gabar iska maskiinada waa gabar iska ardayada waxay gabar hami iyo hobby fiican leh laakiin hamigeeda iyo hobbigeeda fiicnaay waraabo axmaqa oo wuxuusha ayaa xanaqa gooyay adduunyada quruxda badneedna Xamdi ka soo afjaray adduunyada ay ku haminayso dhan asigaas ayaa loogu soo halraray laakiin soo waxa rajeenaya walaashii Xamdi inay cadaalad hesho ee noqon kiisaska hore oo la daboolay oo kale inuu noqon kiiskeeda ayaa rajeenaya marxaladahan oo kalena way nagu soo noqdeen ma ahan hal marxalad oo kaliya waa marxalado fara badan oo nagu soo noqday in gabdho la kufsado oo la dilo oo ka bacdi kaw laga siiyo kuma cusba Soomaaliya laakiin tan waa mid naxariis darro ah si naxariis darro ay dabaq ugu soo tuureen way kufsadeen kufsigu ma simin dabaqa ay si naxariis darro ugu soo tuureen soo qof walba oo damiir leh oo maanta damiir muslim ama damiir Soomaalinimo ku jiro uu ku xanuunsanayaa Soomaha jirkiisa naxaadiisa hal ay u istaagaysaa dhibaatada maanta loo geystay walaasheeda Xamdi waa mid aad ugu xumahay aniga waa rajayna bulshada Soomaaliyeed inay ka wada xunta ee videogan like saari doonto si share garay doonto aad ay u mahadsantii walaalahayga qaaliga walaalahayga waxaan kala idin ka codsanayaa inaan dhihinina walaashay waxay lugaheeda meesha ugu tagto qof ayaa bilmiyo soo hadalkaas wuxuu ku turjumaa walaashay lugaheeda qof dhibaatadiisa qof dhib lugiis ku raadsanay ma jiro waxa laga yaabaa soo walaashay inuu jid socotay ilaa afduubtay soo anaga meel walba kaamir noogu xiro Xamdi kaliya waxaan ku baraarugnay ama ogaanay markii dabaqa laga soo tuuray oo dadka xaafadda arkeen ilaamaha amniga uu caan Xamdina meedkeeda halkaas laga qaado hospitaalka la geeyay familgeeda sida ayaa lagu soo wargelshay walaalayga Soomaaliyeed markuu waxaan iga codsanay muuqaalkina like saartaan share dhahdaan waa please waa iga codsi maanta wax kale oo idinkaga baahanaa mala waxaan u baahanaa walaasheeda Xamdi inay cadaalad hesho Xamdi Gooni Faarax inay cadaalad hesho ayaa u baahanaa please muuqaalka ii share garay haddaad tahay qof Soomaaliya oo damqanaya oo damirkiisu joogo haddaadan ahayn axmaqyadaas oo kaleeto haddaadan ahayn maxaan ku dhahay cadow haddaadan ahayn axmaqaas oo kale please ii share garay videoga waan ku baryayaa please videoga ii share garay like ii saar oo la wadaag bulshada Soomaaliyeed meel walba ay ka joogtaan dalka iyo dibadiisa soo walaasheed waxa u baahanaa inay cadaalad hesho walaasheed waxa u baahanaa inay cadaalad hesho please walaasheed waxa u baahanaa inay cadaalad hesho wax kale maanta meenaga baryaaya aniga videoga ii share garay like ii saar ii share garay si walaasheed Xamdi cadaalad u hesho waa idin baryaa please Soomaaliya videoga like ii saar share garay soo ani like ii saar wax kale uma baahan waxa u baahanaa videoga inuu faafo waxa u baahanaa in walaasheed cadaalad ay hesho waxa u baahanaa walaasheed xaqeed in loo soo dhiciyo walaasheed waa lagu dulmiyay dunidan waa lagu dulmiyay dadkii dulmiyayna dunidan ay maanta saaran yihiin ay ku neefsanayaan korkeeda aniga waan neefsan waayay waan cunteen waayay waan seexan waayay seexad iyo waxaan ku dhahay joog iyo jif iyo cuntaba waan diiday soo damiirkeyga ma siinayo waayo dunida wali waxa dul saaran dadka walaasheeda dhibaateeyay ayaa dunida dul saaran sidoo damiirkeyga isiya inay cuntayga daadegto inay cabitaan caawo inaan lado sidoo damiirkeyga isiya damiirkeyga ma siin karo waxaan iga codsanayaa kiiska inuu noqon kiis la buunbuunin hadduu codkeyga oo idin soo gaara ama videoga please isiya la garay kiiskan waxaan idin ka codsanayaa Soomaali Maxamed ama dadka waxaan ku dhahay kiiskan gacanta ku hay waxaan ka codsanayaa si naxariis leh inay kiiskan dadka geystay
فالدنبيات كان تعدي كان نحرس درده ولا شيء دتك دبق كسو توره سيده نحرس درده ودلay waxaan ka codsanayaa ayagan dabaq wala shay kasoo tuuran oo ku yeela degmada waa bari gaar ahaan xaafada March in ayagana lagu daldalo oo dabaqa laga soo tuuro ayaan ka codsanayaa saas ayaan ka codsanayaa ayagana in ay maraan xanuunka wala shayda martay in la marsiyo ayaan u baahanahay cadaalad ayaa u baahna dabaqi laga soo tuuro wala shayda in ayagana laga soo tuuro ayaa u baahna ummadda Soomaaliyeed please video isi share garee nimca ayaa roob ayaa daayo hada codkayga maqal weyseen waa in ka raali gelinayaa walaalahayga markuu aniga raali gelinayaa walaalahayga Soomaaliyeed please video waxa la isi share garee si walaashayda ay weesho cadaalad ayaa u baahna hadaan nahna ummadda Soomaaliyeed hadaan nahna family Xamdi gooni faarax hadaan nahna waxa u baahna cadaalad ayaa u baahna walaashayna cadaalad hesho ayaa u baahna marna cadaalad in gacmaha laga xiro waxaan u baahnaa si cadaalad in wax walba ay u dhacaan gabadhaas dadkii daldalay ee dabaq ka soo tuuray iyagana waa in dabaqa laga soo tuuro oo la daldalaa please waa in si cadaalad walaashayda kiiskeeda si cadaalad ah loo qabtaa si xor iyo xalaal ah cadaalad ayaan u baahnaa please si walaashayda Xamda oo gabar hami wanaagsan leh iyo future fiican dadka hana qatar please si cadaalad loo horkeeno muuqaalka la sar aad ay mahadsantii Soomaaliya halaan ka badan ma hadli karo halaan ka badan ma hadli karo waa ni salaama walaalay Soomaaliya aad ay ni salaamaya bye